tan iyo waayadan dambe waxaa deegaanada Puntland ku soo badanaya fahamka iyo xiisaha loo qabo dabaasha badeena adigoo arkaya dhalinyaro xiisaha ay u qabaan awgeed dabaal u aadiya dhowr boqol oo kiiloomitir sida Garowe iyo Ayl ama Gaalkacyo Garaacad si ay u helaan bad leh qurux isla mar ahaantaana ay ku dabaalan karayaan xeebta magaalada Boosaaso ayaa iyana ah meelaha ugu wanaagsan ee dadka badankiisu ay u dabaal tagaan saalmaha ay nasashada leeyihiin isla mar ahaantaana dadku ku badan yahay sida xeebta Liide ee magaalada Muqdisho oo aad maalin walba arkayso kuma ku dadweynaha ku dabaalanaya inkasta oo maalinkii aanu halka tagna baddo ahayd mid aad u degan haddana dadka dhalinyarada ah ee u soo dabaasha tagaa waxay ku tilmaameen xeebtani mid naftooda aad u raali gelisay aan lahayn wax cabsi iyo walwala oo soo gaara waqtiyada ay dabaasha ku jiraan goobaha lagu dabaasho Soomaaliya dhamaantood ayaa meelaha ciidda leh oo ku yar yahay dhagaxa baddu oo aanu jeclayn dadku si aanu dhaawac ugu geysan agahooda ka hor inta aanay bilaabin dabaasha buuxda xeebta Boosaaso waxa iyana nin ganacsato ka bilaabay inuu doon la shiraac dadka qofkii doonaya lagu geynayo badweynta lagana soo celinayo kadib markii loo xiro jaakada badbaadada ee loogu talagalay inaan qofku badda laqin isla mar ahaantaana qofku iska bixiyo khidmad yar oo shidaalka doontu isticmaalayso taasoo noqonaysa arrin dhiirigelinteeda leh